بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر عليه. دعو iyo dikri ilaahay subxaana wa tacaala haddaad 3 jeer ku celiso u dhiganto adoo 6 saac fadhiyey meesha salaada subax aad ku tukatay oo 6 saacadood ilaahay keliya aad xusaysay. nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa salaada subax markii la tukaday kadib ayaa wuxuu ka tegay Juwayriya oo musalligeeda meesha ay ku tukanaysay fadhisa. wuxuu soo laabtay rasuulka calayhi salaam salaada duhur oo wax yar ay ka harsan tahay ayuu Juwayriya ku soo laabtay. markuu ku soo laabtay wuxuu arkay Juwayriya oo meesheedii weli fadhisa. wuxuu dhahay, Juwayriya, meeshii aan kaaga tegay miyaad weli fadhisaa? Juwayriya waxay tiri, oo xaaskii rasuulka ahayd, nabiga calayhi salaatu wasalaam xaaskiisa ahayd, waxay ku tiri, yaa rasuulallah, rasuulka ilaahu, salaada subax kadib meeshii aan fadhiyey oo ilaahay xuskiisa aan ku bilaabay dikriga ilaahay subxaana wa tacaala meeshii aan weli fadhiyaa. markaasaa wuxuu yidhi, Juwayriyay, waxaa jirto 3 jeer aan waxaan ku celiyey kelimaad oo xuska ilaahay ah. waxay u dhigantaa subaxdii markaad meeshaas fadhiisatay ilaa hadda waqtigan duhurka aada fadhiso inta ilaahay aada xusaysay waxaa u dhiganta 4taas kelimadood aan akhriyey oo 3 jeer aan kusoo celiyey. maxay tahay marka? walaal kasta inuu barto waay, sababtoo ah waxaa laguu soo koobay ajirkii iyo thawaabkii 6 saacadood adoo meesha aada ku tukatay wayse ku fadhiya aada heli lahayd ayaa waxaa lagugu soo koobay 4 kelimaad oo 3 jeer aada ku celiso. maxay yihiin? subxaana allahi wabixamdih cadada khalqih wa ridaa nafsih wa zinata carshih wa midaada kalimaatih. aan ku celiyo, subxaana allahi wabixamdih cadada khalqih wa ridaa nafsih wa zinata carshih wa midaada kalimaatih. aan ku celiyo mar kale, subxaana allahi wabixamdih cadada khalqih wa ridaa nafsih wa zinata carshih wa midaada kalimaatih. micnaha dikrigaasi, subxaana allahi waxaa nasahan ilaahay oo xumaan iyo nuqsaan oo dhan ka fog. ilaahay baa dhammaystiran ayaad leedahay oon la mid ahayn bini aadamka oo nuqsaan ah iyo makhluuqaadka oo dhan. wa bixamdi, mahad oo dhan ilaahay isagaa ku dheexan. wax walboo nicmo ah oo insaanka ama makhluuqaadka la siiyey waxaa ku mahadsan ilaahay subxaana wa tacaala keliya u bixiyey. intaas jeeraa waxaan subxaana allahi wabixamdiha waxaan ku celcelinayaa cadada khalqi, tirada ilaahay makhluuqaadka uu abuuray, manaa khalqiga ilaahay abuuray oo dhan tiradooda inta uu la egyahay ilaahaba og, wax og ma laha. oo jeeraa waxaan dhahayaa subxaana allahi wabixamdi. wa ridaa nafsi, intuu ilaahay subxaana wa tacaala uu raali ka noqonayaan dhahaya. ama tafsiir kale, ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ku weydiisanayaa raali ahaanshihiisa dhihitaanka kelimadaasi culus oo dikriga ah oo weyneynta ilaahay iyo mahadcelintiisa ah waxaan ugu dhowaanaya ilaahay inuu raali iga noqdo. raadi ahaanshaha ilaahayna jannada way ka weyntahay. waridaa nafsi wa zinata carshi, carshiga ilaahay oo ah makhluuqa ugu weyn oo ilaahay abuuray culayskiisu intuu la egyahay. oo waxaan dhahayaa subxaana allahi wabixamdi, oo micnaheeda loola jeedo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu abuuray makhluuqaadka ugu weyn culayskiisu intuu la egyahay aan ku xusayaa ilaahu, aan dhahayaa subxaana allahi wabixamdi. carshiga ilaahay weyninkiisa makhluuqaadka waxaa kasoo haro dhan makhluuqaadka ugu waaweyn sida cirka iyo dhulka oo laisku geeyay waxay noqonayaan xalqada wareegsan ee silsilada oo dhulka lagu tuuray. dhul banaan oo lama degaan ah marka lagu tuuro yaraantaasay u yar tahay ayay la mid noqonayaan marka carshiga la barbar dhigo. kursiga
oo carshiga kasii weyn marka la barbar dhigo. carshiga ilaahay subxaana wa tacaala malaa'ig ayaa xambaarsan. malaa'igta xambaarsan halkii malag oo ka mid ah dhegtiisa ilaa qoortiisa waxaa loo soconayaa bini aadan hadduu rabo inuu safar galo meesha weyninkiisa intuu gaaray. dadka bini aadanka hadday rabaan inay ku safraan oo dhegta ay ka socdaan oo qoortiisa ay gaaraan meesha ugu dambayso waxay ku qaadanaysaa 790 sanadood ay ku qaadanaysaa. 700 sanadood wax noolaan kara ma jiro. macnaheedu waxa waaye bini aadanka oo safarkaas ku jiro dhimanayaa waay. marka makhluuqa saas u weyn waa mid ka mid ah malaa'igta xambaarsan carshiga. carshigaas intuu la egyahay miisaankiisa oo subxaana allahi wabixamdihi ilaahay subxaana wa tacaala aan ku dhahayaa. wamidaada kalimaadka ilaahay subxaana wa tacaala intay la egyihiin kalimaadka ilaahay uu ku hadlay inta tiro la eg oo subxaana allahi wabixamdihi ilaahu aan ku dhahayaa ma la soo koobi karaa? may lama soo koobi karo. sababtoo ah ilaahay subxaana wa tacaala babaha ilaahay uu abuuray iyo biyaha ilaahay abuuray oo dhan haddii qad laga dhigo, geedaha ilaahay uu abuuray oo dhan haddii qalin loo isticmaalo si loo qoro kalimaadka ilaahay, geedahaasi iyo badweynta biyahoo dhanaa dhammaanayo intay kalimaadka ilaahay dhammaan. marka kalimaadka ilaahay intii la egyihiin oo subxaana allahi wabixamdi aan ku dhahayaa ilaahu markaad 3 jeer ku celiso salaada subax kadib waxay u dhigantaa adoo 6 saacadood fadhiyey meesha aad ku tukatay oo ilaahay aad ku xusaysay ilaa salaada duhurka imaanayso. ilaahuna waafaji ducadaasi. ajirka iyo thawaabka intuu la ega waad garan kartaa. qof 6 saacadood fadhiyey oo ilaahay uu xusaayey waa tawfiiq waaye, waa adag tahay, laakiin qaabkana ku samayn kartaa. 3 jeer inaad ku celceliso subxaana allahi wabixamdi cadada khalqi wa ridaa nafsi wa zinata carshi wa midaada kalimaati. ducadaasi oo kooban faafi, qof kasto ay gaarto waxaad helaysaa ajirkiisa iyo thawaabkiisa qofkaas ilaahay uu siinayo mid lamid oo ilaahay uu ku siinayaa haddaad sheer garayso oo aad qaybiso. ilaahay subxaana wa tacaala u niyeyso dartiisa inaad u qaybinayso saad ilaahay ugu dhawaato oo ajir iyo thawaab aad u hesho oo ilaahay uu kugu dambi dhaafo oo ilaahay subxaana wa tacaala uu kugu naxariisto oo naxariist qofkaasi uu akhrinayo ducadaasi ilaahay adoo nool uu kusoo gaarsiiyo ajirka iyo thawaabka. haddaad dhimatana qofkaas intuu akhrinayo ducadaasi qabrigu ilaahay inuu kugu soo gaarsiiyo. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.